Assalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibayaal, meel kastoo aad ka joogtiin dunida daafeeda. Magacaygu waa Axmed Faarax. Halkaan nagala socotaana waa Himila Training Academy iyo sidoo kale Himila High School. Ku soo dhawaada cashirkii 19aad ee koorska graphic design-ka, khaasatan software-ka la yiraahdo Photoshop. Haddaba saaxiibayaal, cashirkeena 19aad waxaanu ku baran doonaa sidee loo sameeyaa boorarka maqaayadaha. Tusaale ahaan, boorka hadda meeshaan kaaga muuqdo kale sidee loo sameeyaa. boorka inta badan maqaayadaha elektarooniga ee goobaha carwooyinka wax la midka ah boorka loo sameynaa design badan kuma u dhumo kaliya waxaa la design gareeyaa shape-ka iyo shaygii la geli lahaa markii laga soo gudbo cabirka guud ee boorkaasi. Haddaba cabirka boorka markaas waxay ku xiran tahay qolada wax u sameynaya cabirka ku haysto. Hagaag. Haddaba saaxiibayaal, waxaan dhihi doonaa Ctrl N si aan u soo furto cabir cusub. Ctrl N markaa yiraahdo halkan waxaan ku qoran doonaa restaurant oo waxaan ku qoran doonaa magaca maqaayadda haddii ay jirto maqaayadda markaas magac ay leedahay magaca maqaayaddaas ayaan maaragtay ku qoran doonaa. Aniga hadda intaan tusaale ahaan kulmiyo kale iskaga qorana. Boorkan cabirkiisa balliciisa waxaa laga rabaa inuu noqdo 150 halka jooggiisana laga rabo inuu noqdo 100. 100ka markaa lagu sheegaa jooggiisu waa 1 mitir balliciisuna waa 1 mitir iyo bar. Si la mid ah halkan waa inaad doorataa chief waa inaad dooran joog halkaas ku aada chief. Si la mid ah halkan waa inaad ka dhigtaa color mode-ka CMYK qaybtan CMYK ka doora saaxiibayaal sababtoo ah CMYK aad u dooran hadhowti boorkan wuxuu ka noqon doonaa RGB na waxa laga social media la soo dhigaa loo isticmaalaa laakiin waxa hadday waxa daabac CMYK ayaa la isticmaalaa saaxiibayaal. Hagaag inta markaa sameeyno kadibna waxaan dhigi doonaa create. Hagaag saaxiibayaal create markaan aanay waxa ujeedaa cabirkii waa naloo sameeyay. Waxa ugu horreyn sameey doonaa inaan sameeyno magacaan maqaayadda. Si la mid ah waxaan sameey doonaa line-kan. Magaca maqaayadda waxaa la yiraahdaa Siyaad Restaurant. Tusaale ahaan adiga maqaayadda aad u sameynaysid boorka ama madasha aad u sameynaysid waa lagu soo diri doonaa magaceeda. Ugu horreyn marka waxaan sameey doonaa saaxiibayaal shape ayaan soo qaadanaa. Shape markaan soo qaato halkan ayaa dhigaa. Sababta ka shape halkan u dhigaana waxay tahay waxaan ka rabaa line-kii kore ee hadayte aad arkaysid. Shape-ka marka halkaas dhigo si la mid ah waxaan leeyahay Ctrl J ayaan mid kale oo copy ayaan maartay ka sameynaa. Waxaan tagaa halkan layers kan kale oo hoose ayaa waxa ka bedeli doonaa color-ka ayaan ka bedeli doonaa shape-ka hoose. Sababtoo ah kii hadayte haddii aan dib ugu noqon wuxuu leeyahay stroke yar. Marka ka hor intaan u gudbin stroke-gaas yarka qaybta yarka stroke-ga waa laba shape oo is saaran laakiin laba color oo kala duwan leh. Marka midka hoose ayaa maartay color ka bedeli doonaa sida ugu jeedin midkaanba. Is marka aan sameeyno kadib waxaan soo dooran doonaa text marka soo doorato warre meel banaan tag click si shape ku select gareysnaa select looga qaado meel banaan tag click si kadib waxaan soo doortaa text halkaas oo kale tag click ku sii kadibna maqaayadda magaceeda haddii lagu soo diray saas oo kale aniga maqaayadda magaceeda banaanka ayaa ka soo qaatay kii hore ayaan ka tixraa kadibna waxaan leeyahay dhaxbartanka haliigeey magaca is marka aan sameeyo magaca waxa ka bedeli doonaa color-ka oo waxaan isticmaalaa color-ka line-kan ayaan maartay isticmaalaa in saaxiibayaal marka aan sameeyay hadda waxaa halka ugu soo gudbay boorka magaciisa iyo si la mid ah laymankan design-kan aan u isticmaalo laymankan ayaan halkaas uga soo gudbay saaxiibayaal. Waa hagaag in marka ay ka soo gudbo waxa ay ugu xigo inaan halkan soo dhigo shape-kan marka soo dhigo kadibna aan dhex gelsho sawirada shape-ka marka si soo dhigay aad ay u sahlan tahay wax weyn maahan tan oo kale meel banaatay kaligaas ka siina marka hore waxa tahay shape-ka kadibna waxa soo qaadanay rectangle tool marka soo qaadatid kadibna shape-ka halkaas ayaa saas u dhigaysaa saan oo kale marka shape-ka soo dhigtid waa ku sii deyna interface-ka marka ku soo furanto shaashada noocan marka ku soo furanto oo shape-ka waxa sameynay geesaha ayaad maartay ka soo aruurinay shape saan oo kale ayaad geesaha oo soo aruuray hadda waxa u jeedaa shape-kan hal gees oo ka aruursama laakiin saan waxa rabaa in geesaha si isleega oo u soo aruursanto si marka taas u dhacdo halkaas waxa ku dhufanaa qaybtaas ayaan maartay click si doona halkaas waxa la yiraahdaa link halkaas linkigaas ayaan ku dhufan doonaa radius-ka markaan si isla mid ah ay geesaha dhan u soo laabi doonaa waa ka haddii asaata yire uu dhameystir karto marka aad salaad adiga halkaas oo kale ayaan maartay geesana is marka aan sameeyo kadibna waxaan sameeynaa kana waxa leeyahay dhowr xabo copy hal iga sameey shape-kan waa dhowr xabo copy ka samaysan doonaa Ctrl J ayaa leeyahay leftiga qabana waa jiidaas kala u jiida Ctrl J adana marka leeyahay leftiga qabana u jiida Ctrl J ilaa adiga intii shay oo aad geli rabtid ayay maartay ku xirantahay marka aniga tusaale ahaan waxaan ka dhigi rabaa kii hore inta ay ugu jirtaa meeshaan maartay qaadana 1 2 3 5 ay ugu jirto marka kana waxaan qaadan doonaa 5 saa u jeedinba halka marka 5 dad ugu yaala marka waxa sameeyna si 5 aan u noqoto mid macquul xoogaa waa kala siksikina xoogaa taas oo kale ayaan maartay ka dhigaa
inta markii aan sameeyo shaybkan waxaan rabaa inaan soo gelsho sawirradii shaybka marka hore dul tag click sii markaa shaybka click sii kadibna waxaa aadaa faylka ay kugu jiraan sawirrada ana waxay ugu jiraan tusaalahaan faylkan ay ugu qoran tahay maqaayadda oo kale kanoo kale ayay ugu jirtaa sawirka koowaad waa iyakana asaga ayaan soo jiidaa shaybkiisa la garaysnaa dul tagaa waa ku sii deynaa sawirka waa soo qaaday marka saanoo kale meeshaan u keenay kadib shifti altaas la qabanay afartan geesood ayaad maaragtay saas u soo qabanaysa saaxiibyaal afartan geesood marka soo qabatid halkaas sawirka ula ekay saas ula ekaysiinay kadibna waxaan isticmaalaynaa inaan tan layers tagno aan isticmaalno waxa la yiraahdo clip mask red click adhay kadibna waxaa leedahay create clip mask waxaa ujeedaa hadda markaa sawirkii waxuu dhex galay shaybka ayuu dhex galay shaybkan kale taga waxaan soo qaadanaa sawirka labaad ayaan soo qaadanaa tusaalaha midka labaad oo kale ayaan maaragtay soo qaadanaa taas u soo jiide kadibna waa halkaana keenay waa ku sii deynay haga markii soo sii deed shift iyo alt isla qabanay sawirka xogaa soo yaray sawirka xogaa soo yaray kadibna waxaad dul geedaa shaybka dul geed saas markaa shaybka dul geed waxaad tirahdaa right click shaybka dul tag sawirka dul tag right click dheh kadibna waxaad tirahdaa create clip mask waxaa ujeedaa sawirka hadda wuxuu dhex galay shaybka clip mask iyo muhiimadda uu leeyahay waxaa waaye sawirka aan wadano wuxuu noo dhex gelinaa shaybka sawirka intaan shaybka dhex gelin baaxad weyn iskaga fadhiyaa laakiin markii aan shaybka dhex gelino waxaa waaye shaybkaas dhexdiisa wuu controlaya sawirkan waa la control karaa si kastoo soo jiidid shaybkaas ma soo dhaafayo shaybkaas saddexaad taga kadibna waxaa soo furaa faylka maqaayadda sawirka saddexaad soo qaada shaybka saddexaad asagana waxaan kula sameynaa clip mask mid walba marka sidaasaa maaragtay aa kula sameynay way sahlanaa marka haddii aad fahantay clip mask si loo sameeyo haddii aad fahantay inaa waxaa sameeyey waqti maaragtay kuguma qaado doonto marka boorarka maqaayadaha oo arkaysiin inta badan saana maaragtay loo sameeyaa red click dheh kadibna waxaad tirahdaa create clip mask haddii aadan marka hore soo select garaysan shaybka waxaad xasuusnaataa sawirka hadhowti meesha kuu geli umaa marka hore intaa sawirka soo qaadin ka hor waa inaad shaybka select garaystaa asagoo shaybka ku select garayseen waa inaad sawirka maaragtay banaanka aad u doontaa kadibna aad sawirka saanoo kale usoo dhex gelidaa right click tirahdaa kadibna aad tirahdaa create clip mask laakiinse haddii aadan marka hore shaybka aad select garayn sawirka xagowba xaw galaaba sawirka waxuu geli lahaaba uma aadan sheegin sawirka waxaa soo qaadanaa afraad shaybka afraad tagan marka had deertaan sawirada mid walba waxay u qoran 1 2 3 4 ay u kala qoran shaybabkana waxay kaliya 1 2 3 4 5 marka waa aqaana sawirka soo qaada shaybka uu galay salaam waa aqaana had deertaan mid walba waxa waaye lambarka ay u qoran ayaan maartay aan isticmaali doonaa red click dheh create clip mask again waxaa noo haray halkan shay iyo sawirka shanaad aan noo haray sawirka shanaad waa kana soo qaad isagana waxaa sameeydaa markaas shaybka soo dhex galay saan u soo jiidaynaa kadibna waxaad u tagaynaa shaybka shift iyo alt isla qabanaynaa waan soo yaraynaynaa sawirka shift iyo alt isla qabtaan kala soo yareysay halkaan oo kale shaybka kala soo dul geynay kadibna waxaad tagay layers sawirka dul tagay right click leedahay create clip mask leedahay inta markii aan sameeyna saaxiibyaal waxaa u jeedin hadda marka horta halkaan waxaa noo yaalo sawirradii oo dhammaystiran sidoo kale shaybkii ay ku jiraan inta markaa sameeyey waxaan samayn doonaa marka waxaa macna u yeelaa sawirrada inaan u sameeyo waxa la yiraahdo stroke inaan u sameeyo sida shaybkaas ka hadda u kor leenkaas kor u qurxan yahay waxa sawirrada u qurxin karo waa stroke waxaan sameynaa halkaan layerska tagaa tusaale ahaan sawirka koowaad shaybkiisoo kale tagaa waxaan leeyahay halkaas fxta ayaa ku dhufana kadibna waxaan ka dooranaa stroke stroke marka ka doorto kalarka stroke aniga horay ayuu maartay ugu dooran hadda waxaa ujeedaa shaybkan kalarka automatic uu qaad haddii aad kalarkaas ka bedesho halkaas kalar ayaad ku dhufanaysaa kadibna kalarka aad rabtay ayaad isticmaalaysaa laakiin aniga haddeertaan kalarka automatic uu igu doorayo maartay wax uleysay ima u keeni doono hadda marka shaybkan stroke lii saaray maanta oo kuwa ka rasmi lii doonay kaliya shaybkan dul tago right click aan waxaa leeyahay copy layer style shaybkan kala dul taga markaas dul tago waxaan leeyahay right click kadibna waxaa leeyahay paste layer style waxaa ujeedaa mid walba saas maartay sawirka ku dhufane kadibna shaybkiisa ka hooseeya tagay right click leedahay waxaa ku baasti gareynay stylekii aan soo koobiyey ayaad maartay ku baasti gareynay stroke aan soo koobiyey ayaan maartay mid walba taas ugu baasti gareynayna kan hadda u dambeeyo kale ay haray kaliya asaga waa dul taga kadibna waxaa leeyahay right click kadibna markaa right click waxaa dhihi doonaa baasti waxaa ugu baasti gareydaa design again intaa markii aan sameeyey saaxiibyaal oo haddeertaan waxaa ujeediin hadda saana u dhamaystir design haddeertaan saana ugu samayseen laakiin waxaa iga dhiman inaan halkaan shaayaasha magacyadooda aan ku qori karo marka aniga maadaama casarka aan boobsiina waxaa isticmaal haritaan fuusaan oo kale ayaan maartay isticmaal qaybtan wax soo designkana waa ii dhimataa saaxiibyaal marka shaybkan hal xab oo kamid ah ayaan maartay ama laba kamid ah ayaan soo qaadan doonaa si loo sameynaa kaliya ayaan ku tusi doonaa laakiinse adigu sii baraadkay waxaad tagtaa shaybka rectangle soo dooro kadibna waxaad tagtaa halkaan shaybka hoostiisa saas shaybka u dhig saas markaa u dhigtid saas kale markaa u dhigtid kadibna qaybtaan halkuu soo baxaan shaybka halkaan qaybtaan linkiga ayaad maartay click siinaysaa si shaybabku ay geesaha uga xirmaan saasoo kale ka dhig kaas si lamida qaybtaan kore asaga kalena
saano kale ka soo dhig waka waxa ujeedaa hadeertaa marka cabir inta badan slaagin isticmaal cabir slaag si uu xogaa maad shape design ku qurxoonaa cabir slaag isticmaal kadibna asagu shape color ka bedel si ay shape color ku bedeshid waxa isticmaalaynaa ay drop wax la yiraahdo maarta isticmaalayna waa soo xadooranayna colorka aan soo qaadan kadibna kan markaas kale uu sameeyay hoos soo kale ugu dhiga taas kale isku dhiga kadibna waxa la control j left ayaan qabana waa qaada left click oo haay ee maarta jiide center ko kala suugi mid walba sidaas ayaad maarta ugu dhameynaysaa marka aniga waqti aad u igu koobahay adigu dhameystir oo kuwan kale ku dhameystir adigu inta markii aan sameeyay saaxiib waxa jirtay halkan waxa yaala shape-kaas ugu qoran lambarada laga soo xiriir karo maqaayada iyo soo kale location ku taal shape-kaas marka waxa sameeyna isma dhibi doone halka rectangle ayaan maartay taga kadibna shape-ka halkaan maartay saas shape u dhiga saas kale ayaan u dhiga inta markaa sameeyay waxa isticmaal doona wax la yiraahdo radius waka saas intaas leeyahay saas leeyahay oo soo qalluucina saaxiib taas markaa saas u sameeyay waxaan leeyahay marka shape-kan hoos halay ugu dhigo saas kale halayga dhigo mid kale koobiya ka sameysana design-kii hore markaa dib u laabto shape kore wuxuu ahay colorka buluuga kaas oo ahay marka waxa sameynaa shape-kan kore colorkiisa waxa ka dhigaa buluuga ka dhigaa shape-ka kore colorkiisa waxa ka dhigaa colorka kana ka dhigaa marka asaga ayaan maartay soo salad gareynaa idin waxa leedahay okay leedahay waaga inta markii aan sameeyay shape-ka marka waxa jira shape kale oo ka hooseeyo oo colorkan orange-ga waxa tagay halkan layers ay tagay shape-ka kore salad gareynaa marka soo salad gareey oo saarka lagu salad gareey midka ka hooseeyo tag isaga maartay wax yar kor u soo qaad intaas kor u soo qaad waxa sameeyay asoo control j mid kale oo koobiga ka sameeyay midkaas koobiga adana halka shapes-ka click marka halkan colorka orange kaaga soo baxo waxa sida colorka white ka si kaas koobiga marka adana hoos u celi saas kale hoos u celi waxa meesha marka ku jiro saddex shape oo leh saddex color oo kala duwan hagaag inta marka ay sameeyay waxa sameey doonaa kadibna waxa leeyahay soo qaada text halkaan oo kale soo dhig waxa ku qoran halkaan gurceel oo kale si ay u qoraysaa filaani gurceel kadibna control A leeyahay waan soo yareynaa qoraalkan saas kale ayaan maarta u soo yareynaa gurceelka marka waa location oo ku yaal si marka calaam icon-ka location-ka u soo geyso halka kortiisa taga kadibna waxa taabana xarafka keyboard-ka M ayaa ka taabana M marka soo select gareeyo halkan fonts-ka qaybtan fonts-ka ayaan soo furaa marka soo furo kadibna waxa la ka raadinaa hadii aniga aad kugu jiraan tab-ka kugu jiraan tab-ka ayaa soo qaadanaysa xarafka M waa u dhigma location hadii aysan tab-ka kugu jirin qaabka loogu sugo cashir kale ayaan ka soo sameey doonaa saxaabada inta marka aan sameeyo gurceelkan oo kale iyo koobiya leeyahay halkaan oo kale ii mid kale koobiya iga sameey hoos iga dhig labadan xab marka waxa ka rabaa waxaan soo gashay rabaa lambaradii ama artay soo gashay rabaa si lamida location-kan waxa ku bedelaa xarafka waxa taabataa n ee keyboard computer-ka wuxuu ku bedelmay call ayuu maartay isku bedel icon-ka call ayuu maartay isku bedel halkaas marka waxa geliya lambarkaaga soo la'aan saas kala dirtan ama maartay u gelish intaan lambar isoo koobiyay saas intaan hal mar ugu soo koobiyay checked isar halkaan tag waxa sameeydaa saas kale ugu baasta garay waka marka aan sameeyay waxa meeshan ka maqan hadeertan oo kaliya ay waxay tahay loogadii taalay geeskaas meesha loogadii taalay inta badan shirkadaha daawaco boorarka ayaa ka soo xidhigtaan loogadooda marka aan waxa leeyahay control O kala iska leeyahay kadibna waxa soo qaadan doona loogadeedii meesha ay taalo hadii aad looga leedahay inta badan boorarka sameeyay loogadaada waa lagu darsadaa shirkad walba ay ku darsataa hadda maanta shirkad kasta oo soo daawacda boorarka inta badan magaalada marka dhex maraysa boorarka waxa ku arkaysaa boor kasta shirkadii soo daawacday aad maartay ku arkaysaa halkaan oo kale marka soo dhig loogada saas kale ka soo dhig shift alt control t shift alt isla qabo taas kale u soo yareey waka halkaas ayaa maartay gidoona saaxiib waxa u jeedin marka boorka hore oo noo design gareysna iyo boorka hadeerta noo design gareysa same way waxay u kala duwan yihiin oo hadda gaar meesha maba yaalaan qayb seerka icon-as kuwaas bis u kala duwan yihiin kuwaas marka waxa sameeynaa hal mar aan wada buuxsanayna laakiin anu adaa kugu tala galayo inaad buuxisto assignment-kaan u qaad ayaan maartay ugu talagalay halkaas waxa qori doontaa shayasha meesha salahan chicken oo kale abitaan fudud caash saas oo kale wax walba halkan ayaa maartay ku qoraysa marka dhowti boorka waxa ku soo bixi doona boor aad u qurux badan hadii marka lagu yiraahdo boor maqaayad ii samee saan oo kale ayaad u sameynaysaa waxa filaya design-ka restaurant inuu soo ku dhibayn saaxiib hadii ay tahay markuu warsa muuqaalka soo gaaro muuqaalka leeg saar sina share garay qaybta hoose comment-ka wixii su'aal ay qabtay inoo reeb tinta gaar doon casharka xigeen waa dhamaantood dhamaantiin leh isma dhaaf